jawhar maxamed oo xalayto ay taariikhdu ku beegnayd 14 bishii 6 2020 urmo soo saaray ayaa kaga hadlay xaaladda adag ku jiro dalkani. jawhar maxamed oo arrimaha cakran ee dalka ka hadlay ayaa yiri caabuqa COVID-19 ka hor dalku xaalad adag ayuu ku jiray, waa qalad in laga dhigo inay dhibaatadu la curatay imaanshaha caabuqa COVID-19 kadib markii isbedelka jihadiisa seegay ee la afduubay ayay dhibaatadu bilaabatay. jawhar maxamed oo dhibaatada dalka ka aloosan sababeeyay ayaa yiri dib kaste waxaa sabab u ah Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. maamulkii TPLF waxaa halganka rabshadaha watay ee dhiiga ku daatay ula galnay ma ahayn maadaama ay Tigreega ama community-ga ahaayeen. waxaan diiday in dadka la caburiyo oo shakhsiyaad gaar ah ama xisbi keligii awood lagu muquuniyo dadka ka aragti duwan. jawhar maxamed oo eedeymo dusha ka saaray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya mudane Abiy Ahmed ayaa yiri dhibaatada waa inuusan Abiy Ahmed cashir ka baranin wuxuu tagay isla markaana uu iska howlay siduu u yegleeli lahaa hanaanka macaangiga ah. qofka aragti gaar ah wuu yeelan karaa, balse xaaladda adag ee kala guurka ah shakhsi keligii rabitaankiisa inaba ma suurtagelin karo inuu badbaado helo dalkani. jawhar maxamed oo hadalkiisii watay ayaa yiri dhibaatada kale Abiy Ahmed ayaa ah inuusan rabin inuu la tashado oo uu kala fadhiisto xisbiyada iyo dadka ka aragti duwan. taasina waxay keentay in kala duwanaanshaha iyo tabashada sii kordho oo la sii kala fogeeyo. taasi wuxuu ahaa siyaasi jawhar maxamed axmed oo xaalad kastoo dalka ku dhacaya dusha ka saaray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed xilli uu ku sugan yahay isla markaana uu baxay dalka Djibouti oo raba inuu ka qayb galo wada hadalka dawladda Soomaaliya iyo Somaliland. maxayse tahay sababta iyo ujeedka iyo faa'iidada ugu jirta ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya isagoo dalkiisu una helin weli amni iyo weliba degenaansho nololeed?